كل مياه هالنورات Somaliland هكوليسة نبتجلي إلهي هينو حصلي taageerayaasha xisbiga kulmiye gaar ahaan isbaaysiga murashaxiinta ayaa kulanay isugu yimaadeen hotel cigaal ee magaalada Burco waxay kaga hadleen xaaladda xisbiga kulmiye oo haatan marayo ayaguna taageeray go'aankii ay isbaaysiga murashaxiintu ay ku qaadaceen inay ka qayb galaan shirka golaha dhexe ee lagu wado in maalinta bariya uu ka qabsoomo magaalada Hargeysa xubnihii kulankani ka hadlay ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqeen inuu dhex ka noqdo loolanka xisbiga kulmiye isla markaana shirka dib loo dhigo waxaana ay ku dheeraadeen ahmiyadda xisbiga kulmiye iyo saameynta shirka xisbiga kulmiye hadduu qabsoomo bisha ku iman kara xisbigaasi waana kuwan hadaladoodii baaq aad u dheer u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo madaxweyne xilligii halgankii waxaynu soo maray wadanka waadogay inta aad u dul qaadanaysay dagaal iyo dhibasho waadogay xilligii ololaha kulmiyana waxaad u soo martay waadogay 80 cod baa laynaga qaado aynu u sabiray xilligii madaxweynahana waxaad astaan iyo sharaf iyo baal dahab samaystay waynu aragnaa madaxweyne waxaan ka codsanayaa nin aan ku joojin doonin inaanad baalashaadii dahabaha u gubin madaxweyne waxaan kugu adkaynayaa sidii aad markii Cadami iyo Cabdiraxmaan Axmed Cali oo qura ay ka xanaaqeen hotelka Balaase aad ugu sugaysay ee labada bilood dib loogu dhigay shirka maantana garab dhan oo 3 musharax iyo labadii gudoomiye ku xigeen iyo 210 xubnood oo xildhibaan golihii dhexe ay maqan yihiin loo joojin maayo hangaraac dhul uga dhitiyo waa hadallo aan la qaadan karin dalkeena halgan weyn u soo galay waxa looga fadhiyaa inuu door neutral ama dhexdhexaadnimo inuu ka qaato ishaydadka ama isqabsadka xisbiga kulmiye dhexdiisa haday ahaan lahayd maxamed biixi yoonis haday ahaan lahayd axmed kijaandhe iyo haday ahaan lahayd cabdicasiis maxamed samaale soo sida maaha tuumayay shirku waanu aragnaa in madaxweynuhu isdhaga marayo waanu aragnaa in goobtii sharaxan tahay waanu aragnaa in muxuu ahaayay liiskii la qoranayo waanu aragnaa gudidii la diray inay tiri maxamed caraala duur wasiirkii dhammaaya daakhiligu wuu dhintay liiskii xalay bay ku jirtay ilaahay cibrigiisa ha raajiyo duuci madalweyne yimi wax kastuu marsado mar la eeda qabo oo madaacali garta marakay sharcigana matalo war kubad baa u baahatay garsoore iyo calanwale iyo muxuu ahaayay taag ma kubad baynu ka liidanaa yaa dhexdhexaada yaa dalka madaxweyne ka iminkadan haddana aynu joogno dalku wuxuu ku urursan yahay guriga Muuse Biixi sanahay sida ay maanta go'aanka geesinimada leh ay uga gaadheen go'aankii maanta xusbiga kulmiye laba garab oo ahaa madaxweynuhu cadaalad muu samayn markay arkeen cadaalad darrada go'aanka ay ka qaateen maanu soo dhaweyn isu taagay ee diiday in ay maxay ahaydey kali talisnimada iyo maroornimada la qaato inay iska diideen taasaanu taageersanahay waxaanu taageersanahay wasiirada marka hore dalka Soomaaliland u talinaya wax ka aha ee maantana maxay ahaydey arrimaha qaarkood siyaasadda isu casilay waxaanu nahay maanta go'aanka ay soo saareen baanu aad iyo aad u siboorsanaa u taageeray haddii aanu nahay gobolka Togdheer waxa weeye la iskama faano oo beel lama sheego lama yiraahdo anaga caynkana waa arkaysaan umada meesha isugu timid mudana madaxweyne adiga maanta dalka xukuma aad iyo aad baan u mahadsantahay wax qabadkaaga aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa Soomaaliland baal dahabaad ku yeelatay laakiin dib ay isu wiiqin askari haraacin baan ku leenahay waxaan doonayaa dalka badbaadadiisa ha joojiyo mooshinka afduubka ee uu soo oogay Muuse Biixi iyadoo ay iska soo daba dhacayaan taageerada loo muujinayo garabada isbaaysiga murashaxiinta iyo Muuse Biixi ayaa waxaan la saadaalin karin sida uu noqon doono shirka xisbiga kulmiye ee lagu wado inuu qabsamo maalinta bariya waxaana ay siyaasadda xisbigaasi u muuqataa mid cirka isku sii shareeraysa maalinta ka dambaysa Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali News gudaha magaalada Burco.